Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for clicking on this video. Welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. Walaalayaal dhammaan waan islaam kusoo dhawaada casharadeena kanaalkayga subscribe-ka ii saara dadka asxaabtiina iyo familiadiinana u share gareeya. Maanta waxaan baranaynaa clothes waa dhar. Today we are going to learn clothes in Somali. idinkana waxaan igu bari af Ingiriis. Marka kusoo dhawaada, welcome. Casharadeena aan u gudgalno. Let's get into the lessons. Headscarf, khimar. Headscarf, khimar. Now, this next piece of clothing is abaya, and abaya is an Arabic word. I don't quite really know the English word for it, but the closest I can come to it is cloak. But I most definitely know in Somali. And that is shukad. Abaya, shukad. Dee walaalayaal, abayada u malaynayna Ingiriis. Abayad waa abayadii dee af Somali, af Carabina waa lagu dhahaa. Af Ingiriiska luqadan ma qabaan. Marka waa idinka iska ogaada abayada shukada dadka kala ugu tafsiira Ingiriiska. We are going to start with dress. Waxaan ku bilaabeynaa cambuur. Dress, cambuur. Dress, cambuur. Trouser, surwaal. Trouser, surwaal. Jacket, jaakad. Jacket, jaakad. Vest, funaanad hoose. Vest, funaanad hoose. Shirt, shaati. Shirt, shaati. Cap, koofiyad. Cap, koofiyad. Skirt, goono. Skirt, goono. T-shirt, funaanad. T-shirt, funaanad. Shoes, kabo. Shoes, kabo. Socks, sharabaad or sigiso. Socks, sharabaad ama sigiso. Tie, garabati. Tie, garabati. Bra, rajabeto. Dadka qaar waxay u aqaanaan rajisiino. Bra, rajabeto. Underpants, surwaalka hoose. Underpants, surwaalka hoose ama kastuumo. Now, you didn't think I'm gonna leave here before I do some Somali clothing, didn't you? The next beautiful pieces of clothing are in Somali. I have no English word for them, so you're just gonna see the pictures and learn the words. This is dhar. Dhar. They're usually worn at weddings, parties, or any sorts of formal shindig. This one is a bit on the casual side. Bati. Again, bati. Maawis. Maawis. This could be worn at home when you're relaxing, laid back kind of situations, or any kind of way you want to wear them. So I'm gonna part with you guys here. By the way, mind you, different parts of Somalia may have different names for the clothes that I mentioned before. So it's okay. We are diverse and we appreciate all and everything. I wish you a great week ahead of you. See you next Saturday. Walaalayaal, casharada maanta meeshaasay ku egyihiin. Sabtida dambe isu kaaya keena. Magacyadana oo dharka aan hataa soo tiriyey hataa si oo dadban ama si kale u taqaano oo different waa caadi taas. Kulli waa isku wadnaa. Adiga tan Ingiriiska inaa barato baa muhiim muhiimka af Soomaaliga sawirka hataa ku aragtay oo wax kale ku taqaano kuwad waa basaasba. Mac salaama. Insha Allah waa is arki doonaa.